ciyaaraha tartanka fardaha oo ay ka qayb galayaan fardafuulo ka kala socda 6 gobol ee ugu waaweyn Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay taariikhda lagu wadaa inuu ka qabsoomo magaalada Hargeysa. tartanka gamaan ee fardaha oo ka dhacaya Soomaaliland markii ugu horeysay ayaa lagu qabanayaa garoonka kubadda cagta ee Hargeysa. ayadoo dhalinyarada qabanqaabinaysaana ay sheegaysaan in ay ujeedku yahay si loo soo nooleeyo gaadiidkii hore ee dhaqanka ee xiisaha badnaa isla markaana ahaa gaadiidka taariikhda islaamkaba ugu dheereeyay ee ugu ruux badan loogu jecel yahay farduhu. waxaan wareysanay 3 ka mid ah ragga ku miigan fardafuulnimada oo ka kala socda 3 ka mid ah 6 gobol ee tartanka ka qayb galaya. Ali Usman Arshad waxaan ka yimi gobolka Sanaag. gobolka Sanaag in badan baad soo socotay faraskaagan baad u socotaa siday kula muuqataa tartankan waxa ila muuqdaa in aan insha Allah hadii aan ku guuleysan doono hadii la yiri ma islahaydeen tartan noocan oo kala ah Soomaaliland ee ka dhacaya marna ma rajaynayso aad ka qayb gali doontaa in badan baan fardaa wado ma arag ma rajayn mana arag hore ma arag iminka se way fiican tahay muddo intee leeg bad waday faraska waxaan waday dhowr iyo 20 sano u dhow ma isleedahay ninka ugu xariifsan baa tahay fardafuulka mise wax isleedahay rag ka xariifsan waa jira fardafuulka macalinkaygii baa ugu jooga laakiin ismalihi waxba fuulmaad kaaga dhiman macalinkaagu markaa mis gool baa tiri mise gobolka isku meel baan nahay macalinkaagu Sanaag buu ka socdaa magaca Jaamir Saar Shafaarax waa tahay gobolka wad ka socotaa gobolka Sool bad ka socotaa waa tahay faraskaagan baad saaran tahay صار اسحل بالي فرسكي فرسكي واسحل حمر ويته كورن حلينكو بو كباربار حيسو حلين بو كدش حيسو كباربار هديو نيدي خودن xanuun ka soo deerama xidigu baxa anna waa la soo lagu sameeyay marka xaysimo wax weeye waa taleex iyo magaalo waa taleexiga dhabtaha kani muddo kale fardafuul ahayd oo mar hadaad sidan baalka u fushantahay marna ma islahayd tartan faras baad ka qayb galaysaa waan isla waad warjeen waxaan u tababartay waa tartanka horena waa galay hadii waa galay hadii insha Allah hadii hadmo waa tahay waa jala inaad koobka qaadid naam saasan jala insha Allah intee in leeg baad isleedahay xariif baad ku tahay fardafuulnimada boqolkiiba 95 laakiin rag baad shantaana buuxiyay waa dhigi kartaa rag dhul jiray way tii habarti jirtay hooyo yaa inankii faanay waxay tii hooyo rag dhul jiray marka waa laga yaabaa kuuga badin lahaa la taaganahay oo isaguna faraskiisii saaran oo kamid ah fardafuulada tartamaya ka qayb galaya tartanka gamaan oo markii ugu horeysay ee lagu qabanayo Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa magacaaga ugu bilow walaal Muusid Cabdi Ruus Muuse waa tartankii ugu horeeyay kani gobolka ka socota horta adigu Murudujeex magaaladan Hargeysa halka caasimadda u tahay gobolka Murudujeex waa tahay intee in leeg bad fardafuul ahayd 10 sano waa tahay intee in leeg bad ku kalsoon tahay inaad noqon doontid ninka ugu fiican ee fardafuulada ee tartanka galaya wanka kala laga yaabo wanka inaad gasho ayad rajaynaysaa gudoomiyaha ururka tartanka fardaha ee gamaan oo soo qaban qaabiyay tartankan Aadan Cabdikariin Maxamed oo ku magac dheer Abyad ayaanu weydiinay sababta ku dhalisay tartankan oo markii ugu horeysay lagu qabanayo Soomaaliland walaalow horta waxa weeyaan fikirka si shakhsiya aniga lahaa oo waxa weeyaan uu iga soo fulay laakiin hadda team baanu nahay waxa weeyaan urur baa waxa weeyaan loo bedelay fikradii si fikradu ay u dhaqan gasho laakiin waxaan oran karaa waa waxa weeyaan wadamada Carbeed Yurub Mareykan iyo caalamka oo dhan ka dhaca laakiin waxa ku cusub in waxa weeyaan in laga qabto geyga Soomaaliya ay degto oo Soomaaliland ay ugu horeyso wadanka Soomaaliland ugu horeeyo limay bilaabmaysaa waqtiga caadiga ay bilaabmayo tartanka wuxuu bilaabmayaa insha Allah taala 22 bisha 11aad oo maalin Jimco ku beegan salaada casar marka laga soo baxo wuxuuna ka qabsoomayaa stadiumka magaalada Hargeysa waa tahay dadka xiiseynaya iyo dabcan dadka kale aan warka ka haynay diifiyada ka daawan jiray tartanka farda maxaad soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa walaal kulay dadku dareenkooda markaad eegto aad bay u xiiseynayaan inay tartanka ka soo qayb galaan in waxa weeyaan ay daawadaan meesha lagu tartamayo waa tahay Sikriye oo wariye Sikriye oo isna kamid ah bal gudidan qabanqaabinaysa tartanka ayaan isagana weydiinaya kelmadiisa Sikriye sidaad u aragtaan ama maxay ku kala tartankan Nuruddin horta waa qayb kamid ah sportska marka ciyaaraha la kala qaado waa qaybta ugu muhiimsan dalkeenu wuxuu leeyahay waliba gobolada qaar baa ku caana fardaha marka meel ay ku soo bandhigaan ama dad badan baan ka aaminsanayn culture-ka ama dhaqanka marka waxa fikirkan wuxuu kamid yahay fikrada la lagu soo kordhiyo dalka waa tahay imika waxaan saaranahay mid kamid ah fardaha tartanka galaya ee ka qayb galaya tartanka gamaan ee fardaha ee magaalada Hargeysa waxaan rajaynaynaa tartankan inuu noqdo midkii ugu horeeyay ee ka dhacay Hargeysa oo dad badan ay xiiseeyaan inay arkaan mar uun tartan ka dhacay dhulkooda oo aan ka soconin telefishinno oo caalamka ah
nuurudiin culijoog universal t v hargeysa